aniga oo soo xiganaya labada buug ee lagu kala magacaabo The Shaping of Somali Society iyo buugga Italian Colonialism in Somalia ayaa halkan waxaynu ku soo gudbinayaa dhacdooyin kooban oo la xidhiidha halgankii beesha Biyamal ay la gashay Talyaaniga. bishii Oktoobar 1893 waxay ahayd markii ugu horreysay ee calan Talyaaniga laga taagay agagaarka magaalada Marka. nin Soomaaliya ayaa weeraray oo dilay askari Talyaaniga, asagana waa la dilay oo 3 xabadood ayaa lagu dhuftay. kacdoonka beesha Biyamal wuxuu si rasmi ah u bilowday Oktoobar 27, 1905. beesha Biyamal waxay wufuud iyo dagaalyahano iyo culimo u diin u dirtay xaruntii wadaadka ee waqooyi waa Sayid Maxamed Cabdulle Xasane. 4 nin ee hogaaminaysa kooxdan waxay kala ahaayeen Malaaq Cabdi Tuurey, Sheekh Jamaal Macalin Xasan, Maxamed Mursal iyo Bilow Awgeede. dagaalkii labaad ee weyn ee xigay wuxuu ahaa dagaalkii u dhexeeyay beesha Biyamal iyo ciidamada gumaystaha, kaasoo ka dhacay Turunley bishii February 1907. Soomaalida waxay u ahayd jab aad u weyn, boqolaal baa looga dilay dagaalkaas oo ay ku jiraan 10 wiil oo walaalo ah. markii ay dhacday musiibadan ayaa wafdi loo diray xaruntii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan si ay hub uga keenaan, isla markaana wafdigii koowaad ee loo diray Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ayaa la soo laabtay 300 oo qori oo sayidku soo dhiibay. intaas waxaa dheer oo beesha Biyamal ciidan ahaan ugu dirtay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan 500 oo ciidana oo ka baxsan 300 ee loo soo tababaray. Biyamalku waxay jilib kula dagaalameen Talyaaniga. 2,000 oo dagaalyahanada beesha Biyamal ayaa kula dagaalamay ciidamada gumaystaha Talyaaniga halka lagu magacaabo Fiinlow. bishii Julaay isla 1908 waxaa dhacay dagaalkii beesha Biyamal ay la gashay Talyaaniga ee loo yaqaanay Sabti iyo Axad. Dayrtii 1907 beesha Biyamal waxay bilowday dhaqdhaqaaq xooggan ay uga soo horjeedaan gumaystaha. Soomaalida banaadir degan waxay ku xusuustaan ama u yaqaanaan dagaaladii dhacay 1907, 1908 khamiistii sanadkii daraawiishta. sababtuna waxay ahayd ciidamo badan oo ay daraawiishu u soo tababartay beesha Biyamal oo gaadhaya 300 oo la soo laabtay 300 oo qori ayaa dagaalkaas ka qayb qaatay. Cabdi Gafle wuxuu ahaa ninkii bilaabay xiriirka beesha Biyamal iyo dhaqdhaqaaqii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. magaalada Marka wiil Soomaaliya oo lagu magacaabo Cumar Xasan Yuusuf ayaa waxa uu dilay qof Talyaaniga oo lagu magacaabi jiray Terevis Torri buuna ku dilay, wuxuuna ahaa Ashraaf wiilka wax dilay. dhacdada qofka Talyaaniga ee mindida lagu dilay waxaa looga shakiyay qoys Ashraaf oo aad loo xushmayn jiray inay ka dambeeyeen dilkii Terevis, waxaana la soo xiray 5 qof oo Ashraaf ah oo uu ka mid ahaa qaadigii Shariif Cusmaan. 5 qof ee la soo xirayba waxay ku dhinteen xabsiga. dagaalyahanada beesha Biyamal waxay xidheen isu socodka magaalada Muqdisho iyo magaalada Marka. dowladda Talyaaniga waxay u dirtay ciidamo ka kiciya meelaha go'doonka ay geliyeen beesha Biyamal. 3 mar baana la weeraray. dagaaladaas ayada waxay bilow u noqdeen isku dhacyo waqti dheer qaatay oo u dhexeeya beesha Biyamal iyo Talyaaniga. haddaba in badan oo ka mid ah xogahan anigu waxaan idin siiyey ama idin soo qaaday 1 iyo 2, laakiin dhacdooyinkaasoo faahfaahsan waxaad ka helaysaan labada buug ee lagu kala magacaabo Italian Colonialism in Somalia iyo buugga The Shaping of Somali Society. dhacdooyinkaasi ayaga waxay aad uga warramayaan halgankii dheeraa ee beesha Biyamal ay la galeen Talyaaniga. halgamadaas oo inta badan ayaa darro ay tahay maanta in buugaag Soomaaliya oo laga qoray ama cid isu xilqaantay ayna jirin. haddii uu jiro buugaag laga qoray halgankii beesha Biyamal ay la gashay Talyaaniga oo aad meel ku ogtahay, noogu reeb fadlan commentiga. halganka beesha Biyamal wuxuu ka mid ah halgamadii ugu adkaa ee gumaystaha lala galo.